maskaxda bini'aadamku waxaa loo qeybiyaa laba qeybood, subconscious mind iyo conscious mind, oo ah caqliga hurda iyo caqliga soo jeeda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أصحاب قارقة كسو دوادا يوتيوب channel كان دعمنيسان ومنيليو اوفيشال. فالله هداتك عصب تاهي أما يتعمل كوريسي أن صوب بغطو وحان كاعدسانينا إنا سبسكرايب نو ساعتو كمبلال كلام فرو سياد نلص عطو فيديو بدنا حيصة لأن نسو قلن أصحاب قارقة ما أنت برنامج كينو وحكو سابسين ياهي سيدا أدكو قادن لهي قوان صحا دادك بدنا أيا مركي قوان قاتان waxaa jira ka shalaya oo yiraahdo Allah talaayay maxaan sidaan u sameeyay hadaa markii horena go'aan bay qaateen go'aankii qaadanayaana ma aha mid sax ah waa go'aan lagu degdegay marka maanta waxaan idin soo jeedinayaa 5 qodobood ama 5 talaabood oo ka caawin karaya inaad go'aan sax ah ku qaadato ama go'aan sax ah ku gaadho marka waxaan jeenayaa inaad ka heli doontaan la socod wanaagsan qodobka koowaad wiliga go'aan ha gaadhin ama go'aan ha qaadan ayadoo niyadaadu ay kacsan tahay ama aad areysan tahay taas waxay keenaysaa in ay noqoto go'aan qaldan oo ku degdegtay go'aanka aad gaadhay marka taas waxay kaaga keeni kartaa mushkilad wiliga iska ilaali inaad ku degdegto go'aan markaad go'aan gaadhayso ha gaadhin adoo areysan ama adoo isku buuqsan taasi waxay ku keenaysaa in hadhow aad ku gaadho go'aan qaldan haddii aad rabto inaad go'aan sax aad gaadho ugu horeyn waa inaad maskaxdaada ka shaqaysiisaa oo niyadaada dejisaa oo xanaaqa iska saartaa kadib go'aan sax waad gaadhi karaysaa hadday jirto caro kaa tambadisay ama xanaaq kaa tambadiyay waa inaad sugtaa oo waqti kooban aad niyadaada ama maskaxdaada aad dejisaa kadib go'aan gaadh markaas waa go'aan saxsan go'aankaad gaadhayso qodobka labaad isticmaal maskaxdaada hurda markaad qaadanayso go'aanka saxda ah waxaad isweydiinaysaa sidee baan u isticmaalaa caqligayga hurda way fududahay seexo adigoo go'aanka maskaxda ku haya inta aanad qaadan go'aanka maskaxda bini'aadamku waxaa loo qeybiyaa laba qeybood subconscious mind iyo conscious mind oo ah caqliga hurda iyo caqliga soo jeeda caqliga hurda ee subconscious mind-kuna wuxuu aad ugu awood badan yahay caqliga soo jeeda haddii aad u isticmaasho caqliga hurda inaad ku sameyso go'aan waxaad heli doontaa natiijo aad u fiican markaad la seexato go'aanka caqligaaga hurda ama caqligaaga daahsoon wuxuu isku dayi doonaa inuu keeno xal wanaagsan qodobka saddexaad ururso xogtaad heli karto mid ka mid ah waxyaabaha aad ugu muhiimsan go'aan qaadashadu waa inaad xogta ururisaa inaad ururiso isku day inaad xog badan ururiso si aad go'aan wanaagsan u qaadato isla markaana samee adigoo isticmaalaya xogtaad ururisay go'aanka qodobka afaraad sii sawiro natiijada kaaga soo bixi karta go'aankaad qaadanayso ka hor intaanad qaadan go'aanka inaad sii sawirato natiijada kaaga iman karaysa go'aankaad qaadanayso waxay kaa caawinaysaa inaad qaadato go'aan sax isku day inaad meel degan fadhiisato oo bilaa buuqa kadib sawiro wax maskaxdaada ku jira ama go'aanada maskaxdaada ku jira kadib waxa kaaga soo bixi karta go'aan saxsan oo aad ugu gaari karto qodobka shanaad laba maskaxood waxay ka fiican yihiin hal maskax haddii aad hal fikrad hayso saaxiibkaanu uu hayo fikrad kale in aad isku dartaan kaliya ma noqonayso laba fikrad waxaa laga yaabaa xaqiiq ahaan inaad dhowr fikradood keentaan haddii aad waqti u helayso qof aad arintaada kala tashato ama saaxiibka ha noqdee ama qof kale ha noqdee inaad la fadhiisato oo la kaashato taana waxay kaa caawinaysaa inaad qaadato go'aan sax ah aad iyo aad baad mahadsantihiin shanteena qodobood halkaasi ku egyihiin wixii ra'yi aad ka qabtaan ama aad odhan karaysaan waxaa kamaan fahmin commentigaad noogu soo qori kartaan waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen videogan iyo video badan oo xiiso leh inaan idin soo gudbi doono aad iyo aad baad mahadsantihiin fadlan subscribe like share comment intaba hanaga ilaabin kambalelkana furo si aad nala socoto aad iyo aad baad mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe intaan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay bye bye